والد موقتها بيشنا كجرنا إنه يقانو برايد سمونث ودمضان يا يوروب يا ميلا بدن برايد سمونث ما حيتهاي وبيل أي قومولود قاتين وبيل أي برنامج وصوبحان والده وبيل المهاجة هداد استورك وحوجا درسته علم كودا وأركيو جوابها عروتها كو عياران على مدو ذا يالا جوابها وحبرشة على مدو ذا يالا مولش يميلها لقى أديكتو رينبو باشن قان سروبات كليراو على مدو ذا عطالة بل إيوا بل أي دكامة إيمانيان وإليهن علم كان هداد أقرات إنا كودا جسنو لعقبان كسينينا channel kan waxa la yiraahdaa Walid Legacy channel adiga lagu sameeyay walid badbaadada iyo badbaadada awlaadina Allah inoo wada xifdiyo dhamaanteen sida darteed subscribe dheh saad muuqaaladan u hesho walaalaha muslimiinta la share gare si aad xasanaad ku hesho xalqadan waxaan kaga hadlaynaa taariikh kooban oo ku saabsan qoladan qoomuluudka xagee ka yimaadeen wadamadan markaan joogno awoodan xagee kala soo baxeen istiraatiijiyada noocay ay qaateen maraaxil noocay ay soo mareen maxay gacanta ku dhigeen xagee u socdaan xalqada labaad waalid waxaan ka hadli doonaa caruurteena sideen uga badbaadinaa khatartan insha Allah ta'ala mar kale fadlan subscribe walaalaha muslimiinta la share gare waa Walid Legacy channel bisha June 29 markay ahayd 1969 ama 68 waxa bilayska wadankan Mareykanku ay galeen oo weerareen meel la oran jiray Stonewall oo ahaa gay club meel qoomuluudku gay ahaa club ahaa oo night club ahaa ay ku tuman jireen waxaad ogaataa nimankani way jireen laakiin banaanka ma soo bixi jirin maalinkaas bilaysku waxay go'aansadeen in ay raid gareeyaan xoog ku galaan club ay ku dhex jireen subhanallah ilaah quraanka wuxuu ku yiri wata'tina fi nadikum almunkara naadiyay lahaayeen waa midku quraanku sheegayo oo isugu iman jireen oo munkarkan ku shameyn jireen meel marka clubyada kamid ah bilaysku xoog ku galay waxaa dhacay waxaan la filayn way dagaalameen qoladan qoomuluudka way iska caabiyeen bilayska taayaray gubeen baabuur bay jajabiyeen dab bay magaalada New York meelo badan qabadsiiyeen idaacadaha dhan bay soo galeen waa maalinkii u horeysay banaanka u soo baxeen ay noocuma karti wax u eg dadka tuseen idaacadihii bay qabsadeen maalmo dhan bay shaqadu xirnayd New York waxa banaanka u soo baxay marka dad qoomuluuda oo dagaalamaya oo markaa raba in loo arko xuquuq inay leeyihiin waa Stonewall riot dhacdada liira ama banaanbixi ama adbushadii ama dibadbixi mudaharaadyadii Stonewall waad Google garayn kartaa Stonewall riot June 1969 ama 68 mid ahaydba taas waxay ahayd waalidow marxaladii koowaad ee banaanka u soo baxeen la soco marxaladii labaad maxay noqotay way fikireen waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay dallad xuquuqdeena u dooda dallad la shaqeysa siyaasiyiinta wadankan Mareykanka xildhibaanada biilasha aan gudbinayno iyo dhammaan macluumaadkeena siyaasadda nidaamka inaan gallo istiraatiijiyadaas ay qaateen waxay sameeyeen waxaan aaminsanahay 1985 inay ahayd dallad la yiraahdo GLAAD oo markaa u taagan Gays and Lesbians Anti-Defamation Department sidaas oo kale ama dallada ka hortagta sumcad dilka lagu sameynayo qolyahan qoomuluudka waa dallad xuquuqdooda u taagan ayay sameysteen waxay ka dagaalameen marka in loo arko qoomuluudku ama dhaqankan qoomuluudiga wiciyaatu billah inuuna sababin aidiska iyo cuduradan ee zinada iyo waxa ka yimaada in ay maartay ka dagaalamaan in ay garanti helaan wax la mid ah marxaladda saddexaad ee soo mareen waxa weeye waxay dejisteen istiraatiijiyad ka kooban 5 waji istiraatiijiyadaas waxay ahayd sidee aan banaanka ugu soo baxnaa on dadka u kasbanaa on u helnaa muassasaad institutionno ka shaqeynaya qadiyadeena waxa istiraatiijiyada aad ka akhrisan kartaa buugga la yiraahdo After the Ball How America Conquered Its Fear of Gays and Lesbians shanta istiraatiijiyad waalid midda koowaad waxay ahayd dadkani waxay ku dadaaleen in iyaga loo arko victims dad la dulmayo oo dulman si dadku ay ula tacaadufaan istiraatiijiyada labaadna waxay ahayd in dadka iyaga dulmaya loo arko oppressors dad wax dulmaya oo sidii KKK oo kale nimankii cadaanka cunsuriyiinta ay wax dulmayay oo kale loo arko si ay ula xuquuq noqdaan madowgii xuquuqdooda u dagaalamayay istiraatiijiyada saddexaad waalid waxay ahayd in dadka iyaga u dooda ee idaacadaha uga dooda
ay ula mid dhigaan oo loo arko sida Nelson Mandela iyo Dr. King iyo dadkii u doodi jiray xuquuqda dadka madowga oo meesha gaarsiiyaan. Istaraatiijiyadda afraad waxay ahayd waalidow in ay ku yeeshaan aflaanta dad iyaga matala oo dad jirkooda dhisay oo markaa muuqaal quruxsan leh loo geliyo si bulshadu ay u barato dadkan. Istaraatiijiyadda shanaad waxay ahayd in ay samaystaan waxa la yiraahdo 5C oo ah sharci u ogolaanaya daladooda inay deeq hesho grant waxa la yiraahdo sida hay-adaha maaragtay samafalka oo kale grant ay helaan lacagay wax ku qabsadaan. intaa way ku guuleysteen marka. sidaa darteed iyaga waxaa loo arkay dad victima oo la dulmayo. dadka la dagaalamaya waxaa loo arkay dad sida cunsuriyiin ah, sida nimankii cadaanka cunsuriyiinta KKK oo kale, in ay muuqaalo dad jirka dhisay iyo sawiradooda meel walba ay ku dhajiyaan oo indhaha dadku dad ay qabanayaan ay samaystaan, in ay maxaan ku dhahayay sumcadil ku sameeyaan dadka iyaga ka soo horjeeda, iyo in ay helaan grant iyo lacag iyo wax lamida dowladda ay ka helaan. intaa markay mareen kadib way soo baxeen, waxay la kulmeen marka laba shay. kow, hagaas ama hoos u dhac ku yimid kaniisadihii waddankan Mareykanka oy burburayaan. maantadan aan hadlayno waxaa la yidhaha waddankan Mareykanka sanadkii waxaa la xiraa in ka badan 5,000 oo kaniisadood ayaa xidhma, jameeca ma jirto. waxaa kor u baxaya ilxaadka atheism waxaa la yidhaha waddankan Mareykanka. atheismka ama ilxaadka wuxuu marayaa 39%. sidaa darteed saddexda qof ee kaa soo baxdo mid baan Christian bahayno ka tegay diinta. Yurubna way kasii daran tahay. waxay la kulmeen marka hoos u dhac ku yimid Christianity iyo hagaasaya oo dadkii oo ka fogaanaya wixii diintii Christianka ah, iyo sarakac ku yimid atheism ama ilxaad. meesha markay taagan yihiin marka waxay qabsadeen iyagu cultural institutionskii ama mu'asasaadkii dadka u adeegayay, kuwa iclaanka, kuwa madadaalada, kuwa isboortiga, dhammaan si xoog leh ku soo galeen. muddo kadib waxay ku guuleysteen in ay Hollywoodkay meelaha dadka indhahooda ku badan yahay ay 4 actarba mid uu iyaga noqdo. u fiirso, 4 actar mid waa in iyaga la siiyo. caruurta kaartuunada ay daawadaan dhammaan way soo galeen. sidaa darteed kaartuunada caruurta markaad eegto marar badan waxaad arkaysaa heesahooda iyagoo lagu heesayo. masalan Caillou iyo kuwa lamidka markaad daawato, ama kaartuunada maaragtay Blue Cues ay caruurtu daawadaan, waxaad arkaysaa parade waxa la yiraahdo banaanbax, kaartuuna soo banaanbaxaya oo dhahaya ma aragtay qoysasku qaar waxay ka kooban yihiin hooyo kaliya, qoysasku qaar waxay ka kooban yihiin aabba kaliya, qoysasku qaar waxay ka kooban yihiin hooyo aabbo, qoysasku familigu qaar waxay ka kooban yihiin 2 hooyo, qaar waxay ka kooban yihiin 2 aabbo, iyagoo kusoo gabagabeynaya heesta oo odhanaya it doesn't matter who is in the family. qoyska intuu ka kooban yahay muhiim ma aha, as long as everybody loves each other. inta uu qof walba isjecel yahay. macnihii jacaylka unbaa muhiim ahe labada qof ay wada joogta, hadday nin iyo naag yihiin, ama 2 nin ama 2 naag, walciyaadu billaah, in aanay muhiim ahayn. sidaa darteed waalid waxaad moodaa in ay haddana ay galeen istaraatiijiyadii u dambeysay oo ah inay qabsadaan 4 meelood waxbarashada ku saabsan. kow, waxa la yidhaahdo research, cilmi baarista meesha lagu sameeyo. meel walbo cilmi baaris lagu sameeyo gacantay la galeen. waxaad arkaysaa marka hadda qof ah medical university president, madaxweynaha jaamacadda caafimaadka, oo ah qofka ugu aqoonta badan labka iyo dhadiga, inuu yiraahdo lab iyo dhadig kaliya ma jiraan ee wax ka badan baa jira. waxaad arkaysaa ninkii dhannaay caafimaadka bartay in maskaxda laga qabsaday. researchkii markay qabsadeen haddana waxay u yimaadeen teaching, baristii caruurtii wixii la barayay, manaahijtii iyo curriculumkii iyo syllabuskii caruurta loo dejinayay faraha la soo galeen, iyaga oo soo geliyey mowduucyo ku saabsan iyaga dhaqamadooda xunxun, waxyaabaha la yidhaahdo sex education iyo waxa la midka. waa meelaha caruurteena runtii dhibaatada ka soo gaarayso. waxay haddana soo galeen waxa la yidhaahdo service, oo ah iskuullada iyo kolleejyooyinka shaqada ay qabtaan, oo ah counselorka ama qofka kula talinaya. qaarkood waxay ku leeyihiin haddii ilmuhu uu ku wareero lab iyo dhadig midkuu yahay, faarax iyo xalimo midkuu yahay, annagu nala tashan karaa, annaga towjiihinayna oo wadada saxda ah saarayna. qofka saa kale waa qof qoomuluud ka tirsan. maxaad u malayn marka qof qoomuluuda oo raba caruurtaada inuu kala taliyo lab iyo dhadig waxay yihiin? waxay soo galeen meel walba. marka maantadan aan hadlayno waxay xaq u leeyihiin inay iskuullada yimaadaan iyagoo wata waxa la yidhaha advocacy group,
oo markaa u doodaya xuquuqda waxay ugu yeedhaan caruurta u janjeedha xaggooda ay wareeriyaan iyagoo ilmaha weydiinayo dhahayo hooyo aabba miyay kugu dulmaan guriga, hooyo aabba waxaa miyay kaaga sheekeeyaan. haddii ay dhahaan marka ilmuhu uu yidhaahdo waxaan ku wareersanahay lab iyo dhadig, waxaan ahay hooyo aabbaan ka baqayaa, in ay u sheegi karaan inaanay hooyo aabba shaqo kugu lahayn oo qofku go-aan qaadan karo. ilaa maanta la arkay caruur fara badan oo magacyadii laga bedelay oo iskuulka magacuusan waalidku raalli ka ahayn loogu yeedhayo, iyo caruur markaa lagu mudayo waxaa la yidhaahdo puberty blocking hormones ama dheecaanada shiiqiya xubnaha dumarka, masalan naasaha dumarka lagu yaqaano kala shiiqinaya ilaa marka dambe ay galaan waxa la yidhahdo surgery oo markaa xubintii taranka laga jaro, walciyaadu billah. dhammaan intan waalid waxaan ula jeednaa qaybta koowaad oo ah taariikhda ay soo mareen, meesha markaan taaganay iskuuladii ay soo galeen, ilmaheen inaan iskuulka u dirayno, innaga ilmaha maxaynu ku leenahay. xalqada labaad baynu kaga hadlaynaa. fadlan saad u hesho xalqada labaad waxaad samaysaa janaalkan subscribe the Walid Legacy channel, adigaa lagu sameeyey, walaalaha muslimiintana la sheer gare. waxaan ilaahay weydiisanaynaa annaga iyo awlaadeena inuu fitankan naga badbaadiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.